madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Talyaaniga iyo Sweden u fariisanaya Soomaaliya. Danjiraha boqortooyada Sweden mudane Stefan Tlander ayaa wuxuu madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday boqorka dalka Sweden Carl Gustaf. Waxaana tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dhinac waa Soomaaliya iyo Sweden, isagoo dawladda iyo shacbiga Soomaaliyeed ugu mahad soo dhaweynta diiran ay u sameeyaan. Sidoo kale danjiraha cusub ee dalka Talyaaniga mudane Alberto Facchi oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay sida uu ugu hanweyn yahay sare u qaadista xiriirka labada dhinac ee Soomaaliya sidoo kale Talyaaniga. Facchi ayaa madaxweynaha u gudbiyay dhabbal iyo salaan uu uga siday mudane Sergio Mattarella, waxa uuna tilmaamay in dalkiisa ay saaxiib dhow la yihiin shacbiga Soomaaliyeed, xiriir dhowna ay wada yeelan doonaan. dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha warqadaha aqoonsiga ka gudoomay uga warbixiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo sidoo kale wax wada qabsiga ee kala dhaxeeya dalalka caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub wuxuu ugu hambalyeeyay xilkan loo magacaabay, waxa uuna sheegay in ay soo dhaweynayaan isla markaasina si diiran ay ula shaqeyn doonaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale shacbiga. Ayuuna sheegay in had iyo jeer garab taagan yihiin isla markaasina loo baahan yahay inay xoojiyaan isku xirka xiriirka shacabka iyo sidoo kale wadamada ay ka socdaan waa Sweden iyo sidoo kale Talyaaniga. kadib markii madaxweynaha warqadaha aqoonsiga ka gudoobay danjirayaashan isla markaasina warbixinada ay wadeen ay la wadaageen ayaa waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee warfaafinta iyo sidoo kale xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta oo Arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha Oktoobar 2019 warqadaha danjirinimo ka gudoomay danjiraha dalka Sweden ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Stefan Tlander iyo sidoo kale danjiraha dawladda Talyaaniga ee u fadhiyi doona Soomaaliya mudane Alberto Facchi. labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Sweden iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo dawladda Talyaaniga. Sweden waxay kaalin mug ka qaadataa horumarinta iyo taageerada dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaheeda kala duwan. sidoo kale Talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mug ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid horumarineedba Soomaaliya loo garab istaagi lahaa. waxayna dawladda Talyaanigu si gaar ah si xoog badan uga shaqeysaa xoojinta hay'adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan. dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay ku soo dhaweynayaan gacmo furan iyo in ay sii dardargeliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Sweden iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Talyaaniga.